السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبابي في الله والسلام دمانتين meel joogtaan waxaad kusoo dhawaataan casharkeeni barashada business managementiga iyo barnaamijkeeni Fiyabarka inaga oo caawa qaadanayna casharkii afraad waxa weeyaan qaabka loogu isticmaalayo desktopka ama computer kasta loogu isticmaalo. Okay, markaasi saad arkaysaan waa kan halkan ayuu noo yaalaa. marka halkan nagu yaala bin barkana waa soo dhigtay halkan markaasi ku dhufanaya. Okay, passwordkii waan gelinayaa markaaba wuu soo kacayaa waa kaas daqiiqad buu markaasi ku soo kacayaa waqti ma kaama qaadanayo waxa markiiba uu soo booday wax shaqo oo hadda laga qabtay ma jiraan waxaan ka ahayn dhowrkan saddexdii qof ee xalay aan diiwaan gashanay oo halkan noogu jira. marka waxaan qaadanaynaa caawa cashar cusub ayaan qaadanaynaa oo markaasi ku saabsan sida waxa weeyaan loo diiwaan gashado ama loo save garaysto itemska aad hayso. items waxa weeye waa shay'ada aad hayso ashiyada markaasi aad hayso ama aad iibinayso items weeyaan. Partiesna waxa weeyaan waa customerkii kugu xidhnaa oo casharkaas ayaan xalay ku qaadanay oo aan ku faahfaahinay sida loo save garaysto ama loo diiwaan gashado adoo xabad u diiwaan gashanaya macaamiisha kugu xidhan ama macaamilka cusub ee ku yimaada ama macaamiishii hore kugu sii xidhnayd markaad diiwaan gashanayso si aanad markaasi markii aad wax ka iibinayso aad magaciisa dib diiwaan gelin kale aad u samaynin ayaad inaad diiwaan gashato ayaa markaasi wanaagsan. marka maadaama sidaas tahay waxaa jirta in qaab hal mar hadii aad maxay shirkad ama meherad hore u sii shaqeyn jirtay aad tahay oo Excel ku haysato data aad ku haysato hal mar baad jumlad ahaan u soo gelinaysaa waan dhawahay. marka taasi casharada dambe ayaan ku qaadanaynaa. itemskana sidoo kale ama shay'ada aad iibinaysana hadii aad ku haysato maxaa la yiraahdaa aad Excel ku haysato hal mar baad jumlad ahaan u gelinaysaa. marka taas gadaal ayaan markaasi ku qaadan doonaa ka qaadan doonaa insha Allah. laakiin hadda waxaan baranaynaa sida itemska loo diiwaan gashado. item markaad diiwaan gashanayso halkan baad tagaysaa items ay ku qoran tahay items halkaas aad hal mar click siinaysaa waa kan meeshii lagu diiwaan gashanay ayaa ku soo baxaysa ku soo booday item name halka waxaad ku qoranaysaa item name-kii waad ku qoranaysaa item name-kii ayaan qoraynaa. tusaale waxaan iskaga tusaaleynaynaa dawo ayaan ka dhigi karnaa tusaale dawo ayaan ka dhigi karnaa item kaasaan qoray ceftriaxone waa dawo waxa weeyaan markaasi magaceeda waa dhamaystiraysaa waxa weeye wixii macluumaad kale ka hayso lambar aad gelinayso hadii maxaa ahaayay wixii kale aad gelinayso injection 1 gram ama tablet baad ka dhigi kartaa tab baan ka dhigaynaa 1 gram. okay sidaas baad ogaan kartaa. okay halkan waa category hadii category u kala samaysanayso yaani koox bay wax isku raacaan wixii isku kooxa category waa wixii isku kooxa weeyaan. okay halkan waa unit item unitkii weeyaan select unitka macnaha shaygani waxa uu ka kooban yahay ma box buu ka kooban yahay ma box ba ma kartoon ba ma daasad ba ma maxay ahayd liter ba wixii markaasi uu yahay marka waxa weyn waa box ma dhahayna boxka maxaa ku sii dhex jira waxa ku soo dhex jiraan tablet baa ku soo dhex jira boxka waxa ku dhex jira tablet halka tablet waa kan tablet ayaad ka raadsanaysaa waa kaas oo ku soo baxaysa. marka halka hal qodob baa jira waxaa jira markaad halkaa joogto ama markaad xitaa halkan joogto telefoonka marka la isticmaalayo waad ku darsani kartaa hadda box wixii ku jira uu ku leeyahay ka dooro select baad sameyn karaysaa laakiin ma qori karaysid halkana wuxuu ku yiri select intan ku jirto baad select garaynaysaa laakiin kuma dari kartid laakiin computer waxaan u jeedaa telefoonka aad baad oranaysaa waad ku dari kartaa shay kale ayaad ku darsanaysaa meeshan listkan aan ku jirin ayaad ku darsani kartaa oo wax oran kartaa muxuu ahaayay maxaa la yiraahdaa qardaas baad oran kartaa ama maxaa la yiraahdaa dersin baad oran kartaa maxaa la yiraahdaa kiish baad qori kartaa
wixii markaasi dee aad Soomaali baad iskaga qoran kartaa shayga markaasi wixii kusii dhex jira haddana xagan kusii qoraysaa. Marka imika kartoon haddaad qorto oo baasta xaggan markaasi dee waxaad oranaysaa piece ama xabad intaasoo xabo oo baasta ayaa ku jirta. Marka sheekadu markay halkaa marayso halkan box baan hadda gashanay halkana tablet baa ku dhex jira. Boxka waxaa ku dhex jira tablet. Imise tablet ayaa ku dhex jira lagu yiri boxka. Boxkan imise tablet baa ku dhex jira. Waxa ku dhex jiraan iska ornaa tusaale ahaan 100 tablet baa ku jira. Halkan box dawadaas ceftriaxone waxaa ku dhex jira 100 tablet baa ku dhex jira. Halka box wuxuu u dhigmaa tusaawi ama wuxuu dhigtaa equal 100. Okay. Marka safe baad oranaysaa. Safe baad sida halka ku oranaysaa. Marka halkaas uu ku soo furaysaa. Halka box waxaa ku jira 100 tablet. TBS taas waxaa loo soo gaabiyaa tablets. Okay, item code haddaad doonto waad qoranaysaa. Haddaad doontona waa iska daynaysaa dhib ma laha. Okay, stocka. Halkan waa stocki. Maxaa inoo yaala? Stock opening balance. Waa alaabta ku taala inta ma garanaysaa ka hor intaanad ku bilaabin systemkan shaqadiisa aanad bilaabin wixii ku sii yaalay ayaad halkaa gashanaysaa alaab ku taalay. Imise xabaa taalay? 1000 baan ka dhignay 1000 box. 1000 box baan ka dhignay. Okay. Meelahan kale wax saas muhiim maahin. 100 xabo markay gaadhay ii sheeg way halkaasi. Minimum to maintain. Min stock to maintain waa macnaha inta ugu dambaysa waxa weeyaan marka uu soo gaaro ayuu ku xasuusin doonaa wuxuu ka hornayaa intaas baa ma garanaysaa 100 bay gaadhay alaabtaas way ka dhamaanaysaa 100 markuu gaaro macnaha notification ku soo diraya ku xasuusinaya. Okay, intaas ayaa ugu muhiimsan. Halkan waa meesha uu yaalo location-ka dad doonto qoraysa dad doonto iska daynaysaa. Inta xagaas aan kaga baxaynaa wax saas muhiim maahin. Okay, halkan waxa weyn waa qiimihii price-kii weeyaan. Tusaale waxaan ka dhigaynaa $2 ka dhig. Halka box ayaa $2. Okay, halka box ayaa $2. Waa qiimaha markaasi aad ku iibinayso weeyaan. Qiimihii aad laga soo siiyana muxuu ahaa? Wuxuu ahaa tusaale ahaan 1.7 iska dhig. 1.7 tusaale ahaan. Okay, halkan waa maxay iyaduna? Waa wholesale price. Dad wholesale price aad u samaysaa aad doonayso jumlad la tahay wholesale price aad u samaysato waa iska muhiim. Qiimaha markaasi jumladda intee jumlad noqon karta? Minimum baa laga rabaa. Qiimaha horta ku qor qiimaha jumladda aad ku iibinayso. Qiimahan waa qiimihii tafaariiqda. Qiimaha jumladda aad ku iibinayso ayaa la rabaa. Qiimahan jumladda ku iibinaya waxa weeye 1.8 weeyaan. 1.8 okay. Yaani 2 baan siinayna marka tafaariiqda 1.8 1.7 na waxa weeye waan laga soo siiyay. Okay. Markay sidaas tahay halkan waxaa laga rabaa haddii aad rabto markaasi inaad geliso markaasi qiimo alaabta markaasi inta ugu yar ee jumlad noqon karta ayaa laga rabaa. 50 box haddii la qaato ayaa noqonaysa qiimaha jumladda laga siin karaa 50 iyo wixii ka sareeya 50 ilaa 50 ilaa intii ka sareysa waa jumlad bay noqonaysaa. Laakiin 49 jumlad maaha. Okay, isaga hadhow tolo ku kala xadidi doona markaad saa ugu save garaysato. Okay, save baan soo ornaa intaas ugu muhiimsan. Halkan sawirka waad gashan kartaa haddaad telefoonka oo kale sawirtood kaga qaado iyo gelin kartaa. Hadduu computerka kugu jiro halkan ka soo qaadanaysaa sawirkeedii shaygan waa soo gelin kartaa. Sawirkiisii. Category-na waxa weyn waa ablayn ama grouping koox aad u waxayso weeyaan. Okay, intaas ugu muhiimsan save iska dhig markaasi. Itemkii saasaan ku save garaysanay halka item. Okay, item baan oranaynaa. Waa kan. Itemkaas markaan ku dhufanay itemka halkaas uu inoo soo galay. Okay, item kale aan ku daraynaa. Hal item oo kale ayaan ku darsanaynaa. Halka item kale wax kale aan ka dhigaynaa. Tusaale waxaan oranaynaa sonkor. Sonkor baa oranaynaa sonkor. Okay. Sonkorta markaasi sonkorta marka Indian oo kale wadankeedii haddaad ku darto maxaa la yiraahdaa
magaceedii markaasi iyo magacyo kale leedahay marka magaceedii waa halkaa ku qoraysaa dadka sonkorta iibiya garanaya. Okay, marka unitku waa maxay? Unitkeedu waa sac baa la odhanayaa square. sac haddaan weyno dhib ma laha, waxaan odhani karnaa telefonka waa lagaga soo qori karaa. iminka kiish baan ku qori lahayn haddii aan telefonka haysto, telefonka aan ku isticmaalno, laakiin halkan kuma qori kartid. Okay, marka waxaan iska odhanaynaa maxaa la yidhaahdaa, waxaan odhanaynaa piece baan odhanaynaa piece bucks water taasaan iska odhanaynaa. Okay, halkana kilogram baan odhanaynaa, kilogramkaasi halkaa piece ama halkaa kiish imise kilogram baa ku jira? 50 kilogram baa ku jira, 50 ayaa ku jira ayaan odhanaynaa. hadduu 25 ku jiro iyo haddii maxay ahayday waa la samayni karaa iyadana dhib ma laha. Okay, kadib waa kan qiimaha xabadda kiishkaasi qiimaheegu muxuu noqonayaa? kiishka tusaale ahaan wuxuu noqonayaa $40 ayaan siinaynaa. qiimihii lagaa soo siiyeyna qor horta. qiimihii lagaa soo siiyey waxa weeyaan 35 tusaale ahaan. Okay, 35 qiimaha jumladda lagu iibini karo waxay noqoni kartaa 37 ayaan ka dhigaynaa. 37 intee in la eg ayaa jumlad noqoni kartaa? waxaa noqoni karta 5 kiish. 5 kiish qofkii qaata intaasaa laga siinayaa, laakiin qofkii kiish qaata intaasuu noqonayaa. 2 kiish, 3 kiish, 4 kiish intaasay noqonaysaa. Okay, safeka markaas intaasay ku dhan tahay. wax kale oo loo baahanyo muhiima ma jiraan. laakiin stockii baan ilownay. stocka imisa xabaa noo taala? 5,000 oo kiish ayaa noo taala, ama adoo waxaad ka dhigtaaba 500 ka dhig, 500 oo kiish bes. markay gaadho 150 iyo xasuusi notification ii soo dir. Okay, bes intaasaa ugu muhiimsan. Okay, 2 item baan save garaysanay. 2 item ayaan save garaysanay. Okay, markaa waxaan samaynaynaa hal item baan iibinaynaa hadda tusaale ahaan, si aan u aragno qiimihii jumladda iyo qiimaha siduu u kala saarayo. Okay, markaad iibinayso home markaad joogto waa tan halkan ku taala saleski. haddaad doonto waxaad isku qaban kartaa Alt plus S baan taabtay oo kaasuu soo booday. Alt iyo plus S keyboardka ayaa taaban kartaa. Okay, waxaan samaynaynaa waxaan ka iibinaynaa kuwa noo save garaysnaa. kana wax ka iibinaynaa tusaale ahaan Star Pharmacy baan dawo ka iibinaynaa. dawadan ka iibina waa Ceftriaxone waa tan way noo soo baxday. halkayna taala. haddii kale itemyadu badan yihiin C baa taabanaysaa. C markaa taabato iyada kaliya soo hadhay. sokortii way ka baxday meesha. sokorta way ka baxday. C markaan taabano wixii C ka bilowdo dhan baa soo galaya. Okay, imisa xabaan ka iibinaa? tusaale waxaan ka iibinaynaa 20. haddaan ka iibino $2 buu ugu daynayaa. qiimaheedii waa tan, 2daas buu ugu daynayaa. laakiin haddii aan ka dhigno 50 halka way isbedelaysaa. waqtaas qiimihii jumladdu geeyo 50 baa leeyahay, qiimihii jumladda tiradii jumladdu gaadhay. haddaan laakiin 49 xabo aan ka dhigno 49 xabo uu qaato $2 weeyaan. marka 49 iyo wixii ka hooseeya $2 baa laga siinayaa. laakiin wixii ka sarreeya tusaale 56 haddii uu qaato oo taas 100 haddii uu qaato 1.8. marka sidaas weeyaan. safe baan dhahaynaa. 100 xabuu iibsaday 1.8 baa laga siiyey 180 bay noqotay. wakaas halkan wax notification haddii aad ku qorayso Farax baa iga qaaday baa tiri. Okay,
lacagta haddii uu bixiyey safe baad oranaysaa, halkaa receipt baad taabanaysaa. hadduuna bixinna waad ka daynaysaa, waa intaas keliya. hadduu bixiyo waad ka saxaysaa, hadduuna bixinna waad ku daynaysaa. markaa waan ku daynaynaa inuu bixin baan ka dhigaynaa. okay, safe. item kale haddaad ku daraysa waad ku daba dari kartaa. okay, taas marka maxaan iibinay 180 baan iibinay. wixii sales halkan noo soo galay, lacagta inaga maqneed way biirtay oo marka hore 500 baa waxay naga maqneed 400. 180 ayaa soo biiray. 500 oo 500 laynagu lahaa waa sideedii, waxba iskama bedelin. waa kaas. itemskii baan eegaynaa maxaa iska bedelay. itemkan 1000 xabaan ka haysanay, imikana 900 baan ka haysanaa. 100 baan iibinay, wuu yaraaday. marka waa kaasi, sidaas ayay markaasi noqonaysaa qaabka loo save garaysto itemska. xitaa iibkii baan ku darnay markaasi tusaale yar oo gaaban. intaasi baa markaasi ugu muhiimsan. haddii aad rabto inaad edit garayso, saleskii baad tegaysaa. haddii aad wax khaladay waad edit garayni kartaa. 2 jeer baad klik siinaysaa halkaa inta timaado. waa tan caadi, wixii aad ka bedelaysa waad ku daraysaa. tiradaad ku dari kartaa, 200 baad ka dhigi kartaa. wakaas wixii aad ka bedelayso. lacagta haddii uu wax bixiyey waad ka sixi, waxbaad maxay ahayd lacagta hadduu qayb bixiyey, qaybtii uu bixiyey baad qori kartaa. $100 buu bixiyey, wakaas 260 baa kusoo hadhay. 360 bay ahayd, 260 baa kusoo hadhaysa. marka wakaasi sidaas ayay noqonaysaa. haddaan ku saxno 250 kaabuu 260 kaabuu kusoo qorayaa. haddii aad ku darayso itemyo kale, waatan xaggaasaad kaga daraysaa. xaggaasaad kaga darsanaysaa. itemyadu markay kuu badan yihiin, marka 2 item kaliya noo save garaysan, intii baan ku celceliyey. marka wakaas xaggan baad ka bedelaysaa tirada. wakaas saa baad ugu bedelaysaa. wakaa qiimihiin xaggaas saa kuu samaynaya. marka kuwan iska saar, ayna khalkhaldin. tartiibtaa baan u wadaynaa. tana naga masax. halkaa item baan iibinay, aan tusaalaha ku bixinay. marka halkaasaan kasii wadi doonaa insha Allah. haddaad qof kale aad wax ka iibinaysana, taasaad kusii darsan kartaa. wakaas page kaloo cusub buu kuu furayaa, waad u buuxinaysaa. haddana page kale qof kale aad wax ka iibinaysaa, page-kaa kalaad u furaysaa. page kalaad furan kartaa, page kalaad furan kartaa. wakaa safe baad oranaysaa. markaa safe hal mar baad safetaad la dhacaysaa. marka wakaa saasna waad samayni kartaa. marka inaga masax kan, close de, iska masax, close de, xabadii aan caadiga ahayd umaan reeban baan soo reebanay. safe bes, taas iska safe garaysan. okay, wakaas itemskii baan eegaynaa. 800 200 baan ka dhigay, 100 baan ku daray ahayd. marka okay, 800 buu soo reebay. marka halkaa kala socda insha Allah. ciddii u baahan systemkan waa loo xirayaa, waana loo magaranaysaa loo iibinaya insha Allah. marka laga faa'iideysto, siina share gareeya, like-ta iyo comment-igana ha ka ilaawina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.